Wiilkan isagoo maalin jidka maraya ayaa waxa ku soo daadatay bullaacad. Ma uu xanaaqinay inta uu soo qaaday geed baxaya ayaa ugu dhigay si ay biyuhu ugu dhacaan oo uu ugu baxo. Sidoo kale waxa uu arkay islaan waayeel ah oo u baahan caawimo, waxaana uu riixay gaadhigii ay wax ku iibinaysay. Markii dambe waxa u yimiday ay gaajoonaya, cuntadiisii ayaana uu siiyey. Markii uu meherada ka soo baxay ayaa waxa uu arkay inan yar oo leh waxaan u baahanahay waxbarasho. Inta uu lacagtiisii jeebka ka soo saaray ayaa uu siiyey inantii yareed. Markii uu siiyey ayaa haddana maalin kasta inta uu soo iibiyo muus ayuu albaabka uga suri jiray islaan waayeel ah. Islaanta waayeel ay qaadan jirtay. Maalintii labaad waxa uu ku soo noqday geedkii oo ay biyuhu ku socdaan, iyo islaantii waayeelka ahayd oo u baahan caawimo. Waana uu tegay, waana uu caawiyey. Maalintii labaad aygii ayaa haddana u yimiday, cuntadiisii ayaana uu siiyey haddana. Inantii yareyd oo meeshii fadhiday ayuu haddana maalintii labaad ku noqday, sidii si leeg haddana uu caawiyey. Maalin kasta waxa arka nin waayeel ah. Markii dambe ayuu bas raacay, waxaana uu caawiyey gabadh uur leh. Maalin kastana islaantu waxa ay qaadataa muuskii uu soo iibiyey. Kadib xaafadiisii ayuu iska tegay. Maalintii saddexaad ayaa uu soo noqday geedkii oo biyo ay ku socdaan. Maalintan haddaba waxa uu waayey gabadhii yareyd oo waxa uu arkay hooyadii oo keliya. Waxaana uu maqlay dhawaaq, waana uu ku farxay. Gabadhii yareyd waxa ay waxbarasho ku gashay lacagtii yareyd oo uu ku caawin jiray. Sidaa darteed waa uu ku farxay inuu wax u taray oo uu caawiyey. Hooyadiina aad ayay ugu farxday. Odaygiina sidii oo si leeg. Odaygani maalin kasta waxa uu arkaa inankan oo caawinaya hooyada weyn waayeelka ah, ayga iyo gabadha yar. Ninkii maalin isagoo gurigiisa iska jooga waxa ugu timid islaan waayeel ah, waxaana ay ugu timid si ay uga mahadceliso inuu yahay isagu qofkii caawin jiray ee muuska u keeni jiray maalin kasta iyadoo aan haysan waxa ay cunto. Aygiina waxa uu saaxiib la noqday ninkii, gurigana ayuu ku caawin jiray. Gabadhii yareed waxay noqotay gabadh waxbarata. Islaantiina waxa uu noqday ganacsigeedii mid u kaca, waayo caawimaadda ay ka heshay wiilkan. Muuqaalkani waxa uu ka turjumayaa haddii aad aragto qof xanuunsanaya ama dhiban oo caawimaad u baahan, waa inaad caawisaa. Waayo waxa laga yaabaa inay caawimaaddaadaasi aanad u arkayn wax weyn ay u tarto qofka wax weyn, uu Allana ajar iyo xasanaad kaaga qoro. Fadlan haddaad nagu cusub tahay ku soo biir channelka. Haddii aad hore noola socon jirtayna waad ku mahadsan tahay. Fadlan share iyo like hanaga ilaawin. Waad mahadsantihiin dhammaantiin.